dad badan oo na dhageysanaya ayaa laga yaabaa inaanay fahmin cambarka iyo waxa uu yahay marka maxaynu ka naqanaa cabdinaasir dabcan Soomaalida gaar ahaan kuwa xeebaha ku nool cambarka aad u yaqaanaan shay aad qaali ah waaye waana shay uu saxaroodo ama qashin saarka ama uu qashin saaro nibirga weeye qofkii helana waa qof aad u nasiib badan dadka qaar koodna subaxii waxay ku kala lahaan xeebaha oo ay socdaan ilaa intii masaafo ah bal in aroortii hore ay helaan cambar oo kale waxaana jira sheekooyin badan oo Soomaalida dhexdeeda ku saabsan dad cambar helay oo taajiray cambarka adduunka qaali uu ka yahay dhowr shayana loo isticmaalaa dawada loo isticmaalaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo hadda qaab ganacsi loo isticmaalaa waa barfuumka ayaa loo isticmaalaa oo lagu daraa waana warshadaha barfuumka soo saaraya catarka waa aad u isticmaala laakiin sheekada hadda jirta waxa waaye nibiriga adduunka gabaabsi uu ka sii yahay waxyaabaha dabargo ayuuna ka mid yahay dalal badan ayuuna mamnuuc ka yahay in la iibsado cambarka iyo nibiriga in la cuno dalal badan ayuu ka yahay mamnuuc hase yeeshee inkastoo dalka Japan uu ka yahay arrin sharci ah oo xitaa ay geeyeen qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan jalaabashada ama ka hortagga jalaabashada nibiriga ay geeyeen oo ay ku doodayaan inay xaq u leeyihiin inay nibiriga cunaan waayahay marka sheekadan dabcan waa laga yaabaaba inay dad badan dhiirigeliso ay ku kalahaan ama ay tagaan baa xeebaha in aad loo hela adag sida aan sheegayna waa noole aad u yar tiradiisana yar tahay meelo gaarna laga helo laakiin qofkii hela aad u nasiib badan yahay